soo dhawaada baraawo maanta ka hor ma imaanay maanta kooway soo dhawaada baraawo ninkii hogayaha dawladda hoose hore oo la idin sheegayo oo xilka hoog ku haysta maanta waa ninkan hortiin taagan waay ujeedada kulanka ayaa daba socday muran maamulka ah ee ka jira magaalada Baraawe taasi oo looga fursan waayay in dawladda dhexe ay soo farageliso sida uu sharaxay Cabdi Fataax Maxamed Nuur Sandheere gudoomiyaha degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose maanta waxa halkan u joogno waa kala wareejintii qaybtii dhimneed degmada waxa Ilaahay mahadiis ah in si wanaagsan aan u wada dhameysano oo Soomaalinimo ay ku jirto oo aan loo raadin dad kale iyo duunyo kale meel fagaaraha ayaa ku xigeenada gudoomiyaha degmadan xilka loogu wareejiyay maadaama ay ahaayeen kuwa ugu weyn ee isfahan waaga ka jiray waxaana fariin culus dul dhigay xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Cabdullaahi Buule Kamey marka halka ka tagno maamulka xilka la kala wareejiyay qoraal baan diyaarinay kala saxiixanayaan qoladii hore iyo qolada dambe qoraal ay saxiixanayaan qoraalkaas fudayd ha u qaadanina madaxdii sare ee soo dirtay koobiyan u geynaa nuqul kamidana waxaan u direynaa koonfur galbeed waxaan uga jeedaa isbedel iyo wixii dhaliila oo dambe dhinaca ka timaado ha ogaado qoraal sharciya maanta in la saxiixay xil wareejintu afka kaliya maaha iyo halkaan muuqaalka xafladda lagu sameeyay qoraal ayadoo ha la saxiixaya annaguna waa qaadina baritanka maxkamad wax lagu saari kara ninka dambi gala ay noqonaysaa hadii ilaahay odayaasha dhaqanka ayaa soo dhaweeyay dadaalka guuleystay ee dawladda dhexe ee Soomaaliya Baraawe waxa maanta ka gudboon inay duceysato inay farax ku duceysato midnimo ku duceysato ninkii haminayo qabiil ninkii haminayo reer Ilaahay maalintan muraadkaada ma ku sahlaan dhihi kara aniga anigu waxaan nahay nabadoono maamul la wareejiyay iyo mid lagu wareejiyay anaga waxaan dood ka qabna male hadaan nahay odayaasha deegaanka Baraawe kuwa wareejiyay waa wiilasheena kuwa lagu wareejiyay waa wiilasheena qaar anigu aan la safarnahay male maamulka inuu shaqeeyaan rabna ciidanka inay ku xirmaan rabna maanta wixii laga bilaabo insha Allah ta'ala waxaan rajeenaynaa baal cusub inaan furno baalkii cusub ayaan fureynaa gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa u sheegay odayaasha dhaqanka inaysan dhageysan cid aan ku caawinaynin amni iyo horumar waxyaabaha cajiibka waxa kamida waxa lagu leeyahay qof aan magaalada joogin oo ku sugnayn aan qasuhaya lagu dhaha arintaasi waa mangaabni meesha ugu dambeysay sababtoo ah qof magaalada aan dhex taagnayn oo dib hadoo ka dhacay ku dhicin oo hadii qof barwaaqo gal oo asaga barwaaqo galinin hadii wax kasta ka dhacaan asaga wax ka saameeyay jiro magaalada barnaamijkeeda jiro in la yiraahdo qofkaas aan qasooyo sax ma arin sax ma qofka leeyahay in uu qofkaasi diray in aad u tagtaan ama siyaasi ahaado ama sargaal ha ahaado ama odo dhaqan ha ahaado in aan la isku tago la yiraahdo war adiga ninkaasi danta uu noo hayo maxay tahay dankaasan ka maleynaynaa asiga uu ka jawaaba Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada xeebedka Baraawe